بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى dadka mu'miniinta waxa uu ku waajib yeelay inay ramadaanka soomaan. Wuxuu amray inay ramadaanka ku dadaalaan. Wuxuu amray inay soomaan sidii ayaga dadkii ka horeeyay loogu waajib yeeli jiray oo kale in ayagana loogu waajib yeelay, sababtuna ay tahay lacallakum tattaquun, inuu soonku taqwi alla ka cabsi u kordhiyo. xaqiiqdii soonka dadka mu'miniinta ee habkii samidii loogu talagalay iyo wanaagii iyo waajibaadkii soonka loogu talagalay ula yimid una fuliyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u siyaadinayaa taqwi alla ka cabsi, wuxuu u siyaadinayaa taaca iyo iimaan, wuxuu u siyaadinayaa khayr iyo wanaag. lacallakum tattaquun, inaad cabsataan baad mudan tihiin. war sharaab iyo tacaam qof laga reebay, shahawaadkiisii xalaashaa qof laga reebo ilaahay ku ateecay miyaan xaaraam ka hari karin? lacallakum tattaquun, inaad cabsataan baad mudan tihiin. waanu soo soonnay tawfiiq ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay mahadii baanu ku soo soonnay. weliba waxaan maraynaa gebagabadii imaameenadii ugu dambeeyey, tobankii ugu dambeeyey bisha ramadaanka ayaanu markaa ku jirnaa. caawa waxaanu maraynaa habeenkii 25aad. waxaan filayaa soonku maalmahan wixii ka dambeeya inuu gebagaba yahay. waxaan filayaa martideennii cajiibka badneed ee taqwada iyo iimaankii alla ka cabsiga aan ka helaynay inuu gebagaba sii maraayo, inuu sii dibjeediyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba ayaan ka weydiisanaynaa. ramadaanka waa jecleen inuu nala sii joogo, waayo taqwuu noo kordhinayey, alla ka cabsi wuu noo kordhinayey, wuxuuna barayay akhlaaq iyo wanaag, wuxuuna barayay waxyaabo aad iyo aad u qiimo badan, wuxuu nagu tarbiyeynayay tarbiyo fiican. madarasad fiican ayay ahaydoo aan ku jirnay, jaamacad wanaagsan bay ahayoodaanu ku jirnay. laakiin xikmada ilaahay subxaanahu wa tacaala 29 ama 30 maalmood inuu nala joogo ayuu soo amray. bacdamay sidaa tahay walaalayaal, 10ka dambe saan soo tilmaanayba waa 10kii loogu rajo badnaa in laga helo laylatulqadri. waa 10kii loogu rajo badnaa oo la rabay in aad dadaalka loo laalaabo oo loo xoojiyo. waa 10kii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu noolayn jiray, ehelkiisana uu kicin jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed baa ay tahay habeenadii loogu rajo badnaa in laylatulqadriga markaa la helo. habeenka laylatulqadriga in la helo waa habeenadii loogu rajo badnaa. sidaa darteed aad ha loo dadaalo, ilaahayna ha laga baqa subxaanahu wa tacaala. cabdullaahi bni cumar ilaahay ha ka raadi noqdee wuxuu yidhi: ana rijaalan min asxaabi nnabiy, rag asxaabta nebiga ka mida ayaa la tusiyey laylatulqadriga fi lmanaam fi 7 alawaakhir. markaasuu rasuulku yidhi: waxaan arkayaa ruyooyinkiinii inay isku tawaafaqday, isku waafaqday 7 dambe ee faman kaana minkum mutaxariyaha, qof allaala qofkii idinka mid ahoo u taxarinaya oo raadinaya, falyataxarahaa fi 7 alawaakhiri, 7 dambe ha ka raadiya buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale caaisha ilaahay ha ka raadi noqdee waxay tiri rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: taxaraw laylata alqadri fi lwitri fi 10 alawaaqiri, ka raadiya laylatulqadriga tirooyinka isdheer ee 10ka dambe markaa ah. idan waa in aad iyo aad loogu dadaalo sidii markaa loo heli lahaa, sidii markaa loo waafiqi lahaa. 25 ayaanu maraynaa ramadaanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqdiisa intii hore waxaan ka baryaynaa uuna waafajiyey inaan soonno inuu naga aqbalo, inta dhimanna inuu ilaahay nagu saacido subxaanahu wa tacaala. abi saciid alqudri wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa wuxuu ahaa mid ictikaafay min 10 alawsati, 10kii dhexe oo min ramadaan ayuu sanadka ictikaafay. hal sano ayuu 10kii dhexe ictikaafay. mar allaala markii la gaaray ama idaa kaanat laylatu 21, habeenkii 21 ay noqonaysay, wahiya alleyla allatii
yakhruju min sabixatiha min ictikaafihi. tobanka dhexe ictikaafay habeenkii 21 ay noqon lahayd ee uu kasoo bixi lahaa ictikaafkiisii uu markaa u dhammaado tobanka dhexe ugu talagalay ayaa rasuulku wuxuu yidhi qof kasta oo ila ictikaafay markaasuu rasuulku yidhi man ictakafa maci qofkii ila ictikaafay tobankii dhexe haddana ha ila ictikaafa fi lcashri alawaaqiri waayo faqad uriitu haadihi leyla habeenkaa baa lay tusiyey kadib waa lay ilowsiiyey waxaan is arkay anigoo ku sujuudaya fii maa'in watiin biyo iyo dhoobo subaxeeda macnaha xalow laylatulqadri ahaa matal markaasaan subaxeedii waxaan is arkay anigoo dhoobo iyo biyo ku sujuudaya ee ka raadiya tobanka dambe buu yidhi waltamisuuha fii kulli witrin habeen kastoo tirooyinka isdheera ka raadiya sida caawa oo kaloo 25 ah. abi saciid wuxuu yidhi waana la roobeeyey ama samaawaadkii ayaa roob soo qubay habeenka waa habeenkii 21aad masaajidka carish buu ahaa biyihii ayuu soo daayey labadeeda indhood waxaan ku arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo jabihadiisii wejigiisa ay ku taalo biyihii iyo dhoobadii subaxii macnaha min subxi 21 xalay markii 21 ahayd subaxeedii buu yidhi abi saciid radia allahu tacaala canhu. haddaba walaalayaal ictikaafku waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo waxyaabaha khayrkii wanaagga lagu gaaro. ictikaaf xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa luzuumu shay, waa shay la laazimo iyo nafsada wax lagu dul xabiso. waxay la mid tahay qowlkii ilaahay yackufuuna calaa asnaamin lahum, waxay ictikaafsanaayeen oy laazimnaayeen ay dul fafadhiyeen asnaamya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. mulaazimiin bay ku ahaayeen, way ku dul nagaayeen. amaa xagga sharciga waxaa loola jeedaa waa ku nagaasho masaajid shakhsi uu ku nagaado maqsuus ah, si qaas ahna uu ugu nagaado ayadoo daaca ilaahay loola jeedo. xikmada ama xukunkiisa waxay ku ijmaaceen culimada inay mashruuciyo tahay. sidoo kale waxay ku jamceen inuu mustaxib yahay, uusan markaa waajib ahayn. ictikaafka waajib ma aha. xikmadooyinka iyo faa'iidada ku jira laga helo ibnulqayim wuxuu yidhi ilaahay ha ka raali noqdee wuxuu qofku ku toosinayaa ku socodka ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed ayaa ilaahay axadka noocaas ah ee khayrka iyo wanaaggaasa u samaynaya waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala. ictikaafka waxaa loo sharciyeeyey oo loogu talagalay maqsuudkiisa in ruuxda lagu hagaajiyo, in qalbiga qofka uu lagu ictikaafiyo lagu adkeeyo ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala, in lagu jamciyo khayr oo dhan, inuu khalwo sameeyo uu go'i karo uu ilaahay u go'o subxaanahu wa tacaala, inuu ka go'o wax kasta oo ka inshiqaalinaya ama ka mashquulinaya khalwo samaynta, inuu ka istiqlaalo uu ku faa'iidaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti ilaahay uu ku qaabilo iqbaal wanaagsan, humuumkii, khatartii, dhibaatooyinkii qalbigiisa mashquulinayayna uu dhammaan dhinac markaa isaga dhigo. ninka ictikaafaya inuu ilaahay ku xirnaado subxaanahu wa tacaala waa xikmadaha ugu waaweyn. sidaa darteed ayaa qof kasta oo muslim ah oo ictikaafaya waxaa loo baahan yahay inuu laylatulqadrigaasaa markaa u raadiyo. waa arrin lagama maarmaan ah. caaisha waxay tiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ictikaafay 10kii dambe ee ramadaan xataa tawafaahu allah, ilaa ilaahay oofsaday. kadibna sawjaadkiisii ayaa isaga gadaashii ictikaafay. lafdi kale wuxuu ahaa rasuulku wuxuu ahaa mid ictikaafa fii kulli ramadaan. mar allaala markuu salaada subax tukado jaa'a makaanahu aladii ictakafa fiih, makaanku uu ku ictikaafayo markaa soo fadhiisanayay sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal ictikaafka aad buu u qiimo badan yahay. waa in la dadaalo, ilaahayna laga baqaa subxaanahu wa tacaala. waa in diinta ilaahay lagu dhaqmaa lana raacaa. waa in laylatulqadri la raadiyaa. waa in wanaaggaa sidii loo heli lahaa markaa la kasbadaa. khayr iyo wanaag fara badan ayaa markaa la gaarayaa. 25kii ramadaanaanu maraynaa walaalayaal. bishii ramadaanka waa naga gabagabo, way naga galban rabtaa. maca daalika qof kasta oo muslima ha dadaalo, hana ku dadaalo sidii inta dhiman uu uga gaarsiin lahaa khayrkeeda iyo wanaageeda. caaisha ilaahay ha ka raadi noqdee waxay tiri kaanat
annahaa kaanat waxay ahayd mid u shallaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayadoo xaa'ida ah, asagana uu masaajidka ictikaafsan yahay, wax dhibaataa kuma sugna, ayadana ay qowladeedii ku jirto. madaxiisa ayuu u soo gelinayay qowladda, yunaawiluhaa ra'saha, madaxa intuu saas ugu soo dhiibo yuu madaxay u shallaynaysaa. riwaayad kale way u dhaqi jirtay rasuulka, caaday qabtaa caaisha radia allahu tacaala canha, asagana masaajidka uu ictikaafsan yahay. qofka masaajidka ictikaafaya jasadkiisa wax yar oo kamid a hadduu banaanka usoo bixiyo dhibaato inuusan ku jirin, ictikaafkiina buraynin yuu xadiisku markaa tilmaamayaa. sidoo kale waxay tiri wuxuu ahaa nebiga ama wakaana laa yadkhulu lbeyt ila lixaajati linsaan, insaanka xaajadiisa meahee wax kale uma soo geli jirin guriga. suuli hadduu u baahda iyo haddii raashin loo baahda iyo wax kale oo loo soo gelayaa ma jiro. sidaa darteed qofku wuu inshiqaalay, waa go-ay, wuxuu ka mashquulay adduun oo dhan, wuxuu ku mashquulay ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala. sidoo kale caaisha ilaahay haka raalli noqday waxay tiri innii kuntu waxaan ahaa aniga mid guriga usoo gasha markaan ictikaafsanahay lilxaaja, dan baan usoo geli jiray. nin mariid ahoo guriga joogaa jiray ma aanan weydiin jirin ilaa wa ana maaratun, inuu maraya maahane, anuu saas usii maraya, warwey bilaayka war hawilka waran suu yahay. danteedu ma aha inay soo booqato, qof jiran ma soo booqin kartid, janaase ma raaci kartid, kama qaybgeli kartid tartan qur'aan, ma samayn dibadda uga soo baxdo, ma samayn kartid kubad baan soo daawanayaa kadib waan soo noqonayaa, ciyaar baan aadayaa, waa maya. ictikaafkaaga ayaad joogaysaa, dumarkaad ka fogaanaysaa. walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid, idinkoo masaajidada ictikaafsan oo dul fadhiya buu yiri ilaa subxaanahu wa tacaala, ha u dhowaanina dumaradiina. ictikaafka walaalayaal qiimo fara badan baa ku jira, khayr wanaag baa loo baahan yahay in qofku uu kasbado. masaajid jaamica waa in lagu ictikaafaa, rabbi subxaanahu wa tacaala khayr wanaag laga dalbaa. haddii la kari kara masaajidka xaramka ama kan madiina ama baytulmaqdis looma rixaalan karo, saddexdaa maahana mid kale. ilaahay tafadil iyo fadaa'il fara badan buu ku sheegay. hal salaad oo masaajidka xaramka lagu tukado waxay ka fadli badan tahay 100,000 oo salaadood oo keyrkeed ah. 1,000 salaadood oo macnaha hal salaad oo lagu tukado masaajidka madiina ee nebiga, masaajidada kale waxay dheer tahay 1,000 salaadood buu dhahay nebiga. midda baytulmaqdis lagu tukadana 500 oo salaadood ayay la mid tahay halkii salaad oo markaa lagu tukado. idan dadka muslimiinta waa inay aad u dadaalaan walaalayaal. ramadaankeena aan wanaajino, ramadaanka aan ku dadaalno, waqtiyada yar ee noo haray aan ka faa'iidaysano, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan usoo rujuucno, ilaahay aan ka barin inuu soonkii wanaagga naga aqbalo. xaaladahaasoo dhan buu ilaahay ummadda marka ku tirtirsiiyaa oo khayr iyo wanaag ku gaarsiiyaa, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa suu khayr iyo wanaag uga gaaro oo markaa faraya. marka ictikaafka arrintiisii xaaladiisa waa sidaa, taasaana markaa loogu talagalay, ilaahayna uu rabaa subxaanahu wa tacaala. idan xaramka wuxuu ka mid yahay meelaha xataa haddii imtiqaanaa jaahiliga ay dadku nadraen, rasuulku uu markaa faray inay fuliyaan. cumar ibn khataab ayaa nebiga u yimid, markaasuu yaa rasuul allah innii kuntu nadartu, waxaan ku nadray anoo jaahiligii ku sugan inaan ictikaafa habeen. riwaayad kale maalin bay ku dartay fii masjid alxaraam, markaasuu rasuulku yidhi fa awfi binadrika, nadarkaaga oofi. riwaayad kale ma aysan sheegin yowman walaa leylan, waxay tiri waxaan ku nadray inaan ictikaafo masaajidka xaramka ah. markaasaa la yidhi oofi nadarkaaga, macnaha xataa umuur jaahili wixii dhaca yaa markaa la dhahayo qofka waa inuu fuliyo, waa inuu xaaladaa markaa sameeyo. idan ramadaankii waa gebagabo, waxaan maraynaa habeenkii 25aad. markaasuu ilaah subxaanahu wa tacaala qofkii hore usoo soomayna khayr iyo wanaag ku abaalmarinaya. qofkan waa inuu ilaahay ka barya intuu hore usoo soomay inuu ilaahay ka aqbalo, inta dhimanna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo suu markaa u fulin lahaa, ugana soo bixi lahaa. qof kastoo muslima waxaa laga rabaa inuu diinta ilaahay ku dadaalo oo taacada ilaahay raaco oo khayrkii wanaagga uu badiyo. walaa saymaa 10kaa dambe aanu ku jirno ee loogu rajo badan yahay inay ummaddu ka dhex helaan laylatulqadriga, oo loogu rajo badan yahay inay ummaddu ka gaaraan karaama iyo khayr. ilaah baan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, soonkana naga aqbalo. afur wanaagsan iyo wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.